Today is an important milestone in partnership between the United States and Somalia. maanta waa maalin taariikhi u ah xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya. Saacado ka hor waxaan si rasmi ah u furay xafiiska howlgalka hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee Soomaaliya. Kani waa xafiiskii ugu horeeyay ee howlgalka USAID muddo 30 sano ku dhawaad ah. Daafurka xafiiska USAID kaliya ma xoojinayo xiriirka labadeena dawladood ee waxa uu sidoo kale xoojinayaa horumarka Soomaaliya. waxaan u furnay xafiiska maadaama dadka iyo hoggaanka Soomaaliyeed ay muujiyeen inay ka go'an tahay isku tiirnaanta iyo hagaajinta mustaqbalkooda. USAID markii ay ogaatay in hoggaanka Soomaaliya ay tallaabooyin u qaadayaan isku filnaanta dalkooda kadib waxaanu go'aansanay inaanu kala shaqeyno wadadaas waana waxa loo furayo xafiiska howlgalka. dadaalka dawladda Soomaaliya ee dib u habeynta dalka waa mid u muuqanaya inuu saldhigiisu yahay ka jawaabidda baahida muwaadiniinta iyo ballaarinta fursadaha dhaqaalaha waana mid dhisaya dalkan. waa rajo wanaagsan iyo maalin hore loo soconayo. waan ku faraxsanahay inaan xalfadan gaarka ah ka soo qayb galo. waxaan qabaa rajo buuxda oo la xiriirta sii wadida tallaabooyinkan loo qaadayo dhismaha guusha iyo ilaalinta shaqada adag ee horumarka leh. dabcan sidoo kale dadka Soomaaliyeed waa kuwa u qalma horumarka aanu aragnay. Earlier today I attended a trade symposium showcasing small businesses here in Somalia. horaantii maanta waxaan ka qayb galay bandhigga ganacsiga wax soo saarka Soomaaliya oo ay taageertay USAID. bandhiggani waxa uu ahaa mid aad u qurux badan oo aan dhihi karo ganacsiga Soomaaliya waxa uu ku istaagayaa cagihiisa waana uu noqon karaa mustaqbalka dhow. I met young Somali women. waxaan la kulmay haween dhalinyaro ah oo bartay injineernimo kuwaasoo gacanta kula jira tamarta kana shaqeynaya dib u howlgelinteeda. waa mid aad u xiiso badan suurtagalnimadeeda. anigu waxay ii ahayd mid i kicisay. waxaan la kulmay rag iyo dumar kalluumaysato ah. waxaan ku faanayaa inay tuseen wax soo saarkooda kalluunka waliba kuwa aad u weyn oo noocyadoodu ay kala duwan yihiin. waxay ka hadlayeen suurtagalnimada inay heli karaan suuqyo waaweyn. waa tillaabooyin hore loo qaaday oo aan rajaynayo in la taageero. kuwaasi waxay ahaayeen hablo iyo rag ganacsato ah oo aan rajaynayo inay sii horumariyaan shaqadooda iyada oo lagu jiro xaalad adag oo dhinaca cimilada ah. hoggaanka ganacsigan adkaysiga leh ee raadinaya wadiiqooyin uu ku guulaysto hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka waxaa sharaf u ah inay ka caawiso dhismaha awoodooda wax soo saarka si ay u ballaariyaan ganacsigooda oo haddana waliba shaqo abuur u ah dadka Soomaaliyeed. runtii waxaa jira wax badan oo i rajo gelinaya. The Prime Minister and I also, however, aniga iyo ra'iisul wasaaraha si kastaba waxaan ka wada hadalnay caqabado badan oo ina hor yaalla. caqabadahaasi kaliya maahan kuwa amniga. Soomaaliya waa dal la yimid dimuqraadiyad ugub ah. doorashada soo aadan waa fursad taariikhi ah oo lagu muujin karo mabaadi'da dimuqraadiyadda Soomaaliya laguna keeni karo dawlad haysata wakaalasho dhab ah oo dhaxal u noqota jiilka imaanaya. this includes free and fair elections and the peaceful transition of power. tani waxaa ku jirta doorasho xur iyo xalaal ah iyo xilka oo lagu kala wareego si nabad ah. There's also the prospect of debt relief. sidoo kale waxaa jirta yididiilo la xiriirta deen cafinta iyo in guul laga gaaro. waxa kaliya ee dawladda laga rabaa waa inay sii wado hawsha adag ee dib u habeynta dhaqaalaha iyo dadaalka ciribtirka musuqmaasuqa. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa wajahaya cunno yari. waan ogahay waxaa sabab u ah abaaraha iyo khilaafaadka. In response to this alarming food insecurity, today I am announcing $185 million in humanitarian assistance here. annaga oo ka jawaabayna dhibaatooyinkaas cunno yarida la xiriira maanta waxaan ku dhawaaqayaa $185 milyan oo gargaar bini'aadanimo ah si loogu bixiyo cunnooyin nafadbaadin ah, biyo iyo adeeg caafimaad oo dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin xilligan. annaga oo ah dalka ugu ballaaran ee gacan ka geysta gargaarka xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya waxaa sharaf inoo ah inaan garab istaagno iyaga iyo hoggaankooda
wakhtigan baahidu taagan tahay laakiin sidoo kale waxaan aad ula dhacsannahay la shaqaynta dawladda si loo dhiso gaashaanka dhibaatooyinkan Soomaaliya waa ay ka wanaagsanaan doontaa sidan maalin ayay isku taagi doontaa cagaheeda si cad Soomaaliya waxaa haysta mushkilada dhowr ah mana aha kuwa fudud ka gudbidooda waxaa loo baahan yahay doorashada go'aano aad u adag balse waa in la dhisaa aasaaska Soomaaliya xoogan maanta 30 sano oo ina dhaaftay kadib inaan isku imaano waxaan u maleynayaa waa tallaabo kale oo aad u muhiim ah oo horey loo qaaday Mr. Prime Minister, it is an honor to be here. Ra'iisul Wasaare inaad halkan nala joogto adiguna sharaf bay inoo tahay Mareykanku waa sii wadaya inuu idin garab taagnaado idin la shaqeeyo arkana dadka Soomaaliyeed oo haysta deganaasho xukun ay leeyihiin iyo mustaqbal barwaaqo ah and the support towards a more stable, democratic, and yes, prosperous future. Thank you.